ها سؤال شو؟ of Somali who is it please? No سؤال شو Somali أنا إنجليزي ما فاهم. ها؟ Yes دقن واي man. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد جزاكم الله خيرا إما شاء اعتمادين مانتي كان سوقي بشين برنامج كان مهم كأه marka ugu horeeyo waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo na siiyay opportunity-gan aan isugu nimaadno masaajidkeena ku kulanno ugana hadalno maaragtay dhaqankeena. Marka xiga waxaan rabaa inaan u mahadceliyo imaamkeena Zakariya oo ah hindisaha programkan iskuna keenay intaan oo dhalinyaro ah siday u bartaan dhaqankooda iyo culture-kooda. wuxuu noqon doonaa barnaamijkan programkan 3 parts. maanta waxa ugu horeyn doona dhaqanka ama identity-ga. waxa noogu xigi doona insha Allah ta'ala July 29th xeer ama sao taqaana resolution ama gar baa ku xigi doona. waxa ku xigi doona August 26 program kale oo la qabanayo oo ku saabsan oral tradition ama poetry. Somalis are known sida loo yaqaan nations of poets in loo yaqaano. marka su'aal hadaa idin weydiiyo marka maqashaan dhaqan maxaa maskaxdiina ku soo dhaca? dhaqanku ma aha identity kaliya ma aha, waa dad intay meel isugu yimaadeen oo custom leh, dhaqan leh, dhar leh, wax caadaad ayaga u gooniya leh. wax yar haddaan idin dul maro waxa ka mid ah hospitality-ga ama martisoorka. Soomaalidu waxay aad iyo aad caan ugu yihiin inay soo dhaweeyaan dadka oo maaragtay martida ay aad ugu naxariistaan. waa dhaqankooda. waxaa ka mid ah respect for elders, inay waayeelka ay ixtiraamaan. taasna kuma koobna Soomaali kaliya, laakiin Soomaalidu aad bay maaragtay u danaysaa oo maaragtay xil isaga saartaa. waxaa ka mid ah family ties, inay Soomaalidu isku xiran tahay, iska warqabto. aabihii iyo hooyadii ay wada joogaan gurigii, awoowe ayeeyo kulli maaragtay inay maaragtay aad isugu xiran yihiin. tusaalaha ugu fiican waxa waaye Soomaaliya markay burburtay waa aragteen wadankii dawladdii iyo systemkii uu burburay. Soomaalida they survive. waxay ku survive garoobeen waa family ties. greetings in salaato kale Soomaalidu annaga haddaan Soomaali nahay yani greetings markaa maqasho waxaad leedahay salaamu calaykum waraxmatullah. laakiin Soomaalidu dhaqan gooni ah oo soo jireena oo ku saabsan salaanta ayaa jira. dhaqankuna sidiisa wuxuu ka bilowdaa dhanka baadiyaha. Soomaalidu markay is arkaan oo is wareysanayaan jidku kulmaan ayagoo strangers isku ah way kulmaan, way fariistaan. nin baa waramaya, wuxuu ka waramayaa qof kalena waa stranger, isma yaqaanaan, meeshuu degan yahay, xoolihiisa, inay naq leedahay meeshaas. information-ka dhan buu siinayaa. halkan maxaan dhahnaa that's privacy, we don't touch that. salaamu calaykum wa calaykum asalaam, how are you? I'm fine, that's it. marka dhaqankaas yani Soomaalidu aad buu maaragtay ugu fiican yahay. diinta ka mid ah dhaqankooda inay diinta maaragtay ay aad u jecel yihiin oo quraanka u jecel yihiin oo ahlul quraan yihiin. Assalamu alaikum.
xadeertan waxaa bilaabinaya ciyaaro lagu tartamayo Jeopardy la dhaho marka waxaa la sameynayaa boys against girls gabdhaha iyo wiilasha tartamayo qofkii badiyaan arkayna oo Soomaaligiisa fiican yahay wiilasha way hadal badan yihiin waxay dhahaan way yaqaanaan wax laakiin maanta arkayna marka waxaan ka bilaabaynaa basics markaan ka bilaabno 100 200 300 400 ilaa hoos ilaa ka dhameyno gamekan kan ku xigo Kahoot kaas waa qof walba goonigiisa oo wuxuu leeyahay qofkii badiyaa kaalinta koowaad $100 kaalinta labaad $60 qofka saddexaad wuxuu qaadanayaa $40 laakiin kan waa inaan ogaanaa rabnaa wiilashii gabdhaha kee Soomaali yaqaan marka ruleska waxaa waaye gabdhaha hal qof ay dooranayaan oo represent u sameynayo so jawaabta gabadhaas u sheegayaan ayada hadlayso wiilashana waa sidoo kale hal wiil aad dooranaysiin wiilkaas ka jawaabayo haddii kale qayle iyo booq lama baahno insha Allah marka yaa wiilasha hogaaminaya gabdhahana yaa ma hadda sidoo ya marka hadda waxaa rabaa inaan ogaado qofka wiilasha su'aalaha uga jawaabaya gabdhahana yaa uga jawaabaya marka 2 minutes aan isiinaya qof walba ha doorto qofkii what is Somalia's currency for the girls go first you have 25 seconds shilling okay yeah waa sax gabdhaha way heleen yeah a question if you miss huh Zakaria no I think su'aasha leeda okay su'aasha labaad wiilasha what are Somalia's major exports name 3 of them hey agriculture oh su'aasha af Soomaaliga ku sheeg export yeah ما قفك دور تاع الرحمن جامعة بكل جسمه هاي يا جيل هاي سد لو حبو ها موس سدح جيل موس اوكي وقتي وكاد ماضي قبلها بيضا no وقتي وده ماضي sorry قبلها ما كجوابي هاي 10 seconds ها كالون هاي موس جيل ها livestock, fish, and a banana. Huh? Yeah. She got it. Okay. Livestock waxa waa geel ku jira. Ha. Yo. Adeer waa caawin kartiin wiilasha hadii caawimad u baahan yihiin. Okay. Keep the noise down, please. Yeah. Okay. Su'aasha qofka ka jawaabayo kor ha u sheego. Okay, su'aasha hadda waa gabdhaha. What is the highest peak mountain in Somalia? Buurta ugu dheer Soomaaliya. Buurta ugu dheer Soomaaliya. ها؟ دالو دالو مايا خلط واي
wiilasha هاي عبد الرحمن wiilasha هذا suurad waa sax suurad waa soo dhaweeyey good try haye hadda waa wiilasha su'aashan and what are the three countries that colonized Somalia saddex wadan oo Soomaaliya gumaysatay haye hal qof bas saddex wadan oo Soomaaliya gumaysatay waa saddexde Talyaaniga Ingiriiska Faransiiska waa sax the French Italy and British okay hadda waa su'aasha dhinaca gabdhaha What year did the civil war in Somalia start? Goormuu dagaalka ka bilowday Soomaaliya sanadkee ahayd 1991 waa sax su'aasha way ka jawaabtay hadda waa wiilasha su'aasha soo socota ayaga I'm just going with like okay once we're done with this okay what is women's traditional wear at a wedding called dumarka maxay xirtaan markii arooska aadaan ha dirac waa sax dirac ama guntiino okay dhinaca gabdhaha hadda su'aashan and what is the traditional poem called gabay صح okay easy okay wiilasha su'aasha soo socota leh what's the name of the traditional Somali housemaid from wood called and grass guriga oo Somali laga dhiso cawska maxaa su'aasha waqtigan igu socdo 7 5 4 3 2 1 wiilasha weel ku dhaceen gabdhaha chance-ka ninka iska leh guriga Soomaaliga mudul oo aqal okay su'aasha way saxday gabadha kala khayr aqal ama mudul labadaba waa sax su'aasha soo socota gabdhaha ayaa iska leh what's the money paid to the bride's family called and lacagta la siiyo hay su'aasha gabdhaha waaye 10 seconds يراد صح ويراد مسوري وصح يراد سعيشة وهلن هذا ويلشة عذر وعاوي كرتين ويلشة عبد الرحمن عنده تاجا No, they're helping the What's the name of the traditional fabric used in traditional Somali clothing? سؤاشان ايه هاي Somali, this is what you ask for. سؤاشا 5 seconds 4 3 2 1 وليش وكل عن That's the timer هاي قبلها أليندي وصح How? No. No. She actually answered from her head. Okay, Hadertan. It's the girl's tongue, right? Okay. Wilisha, can you be quiet? Hey, Hadertan wa bedelina marka hado next one qofka iskale wuxuu dooranaya either Somali words, Somali history, proverbs. Yo waxay rabaan marka
gabdhaha maxaa dooranaysiin? First question. Saddexdaas oo afartas intee rabtiin? Somali proverbs 300. Okay. When you're in a place, either makes your presence known or stay away. You're saying Somalia. Beautiful. Mel kamaqno, mel ka ha? Ka maqnaa ama ka muuqda. ها waa sax ka muuqda haye meel waa laga muuqdaa ama waa laga maqnaadaa. Yes. Yeah? Okay, wiilasha mi wax doorta? Any section? Huh? History 500? 500? Okay. Somali history. The first Somali woman in the military pilot. Magaed. Ha. Brother needs to. Huh? Asli. What the hell is this? Okay, wuxuu dhahay Asli Hassan wuu helay. That's the right answer. Labada webi ee ku taala Soomaaliya kuwaas oo muhiim u ah beeraha gobolka Koonfureed waa Juba iyo say Koonfureed. Can you not read? Hi. Yo. I'm looking at you the whole time. Shabelle. Why? Answer is Shabelle. Green. Okay.